nin faqiir ah ayaa wuxuu u istaajiyey si tabar yar darawal sita taksi cod daciif ah ayaa wuxuu ku yidhi miyaad igeynaysaa guri ku agyaala buurta mana haysto wax lacag ah oo aan ku siiyo wuu dhoola caddeeyey darawalkii waday tagsiga wuxuuna ku yidhi soo raac tagsiga hana ka fikirin lacagtii ijaarka darawalkii ninkii faqiirka ahaa wuxuu geeyey gurigiisa ninkii markii uu ka soo degay tagsiga waxaa qaabilay carruurtiisa ilaa ay ka su'aaleen aabbe manoo keentay rooti si murugo leh ayuu wuxuu ku dhahay maya wallaahi maydiin keenin wax rootiya waxaan ka xishooday darawalkay soo qaaday inaan ku dheereeyo wakhtiga iyo masaafada anigoo aanan siinaynin wax lacaga ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu maqlay jawaabta uu ku jawaabay ninkii maskiinka ahaa wuxuuna jeclaystay inuu dhammaystirto ajirkiisa wuxuu u soo daadegay buurta hoosteeda wuxuuna u soo iibiyey 5 bac oo rootiya wuxuuna soo aaday iyaga xaggooda kadibna wuu siiyey ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu arkay carruurtii ninka faqiirka ahaa uu dhalay oo rootiga ku cunay daqiiqado gudahooda baahi daran oo haysay awgeed wuxuu isku dayey inuu qariyo ilmadiisa wuxuuna ka soo kaxaysay gaarigiisa buurtii ilaa uu ka yimid magaaladii isagoo u socda inuu shaqaysto wuxuuna raadinayay dad uu ku qaado gaariga durbadiiba waxaa istaajiyey nin dalxiisaa ah wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaad igeysid elaboorka tagsiilihii wuxuu geeyey ninkii dalxiisaha ahaa elaboorka markii uu geeyey elaboorka kadib ninkii dalxiisaha ahaa wuxuu siiyey tagsiilihii $2,000 oo lacagta laga rabayna keliya waxay ahayd $500 oo ninkii darawalka ahaa isagoo jooga weli elaboorka ayuu haddana arkay nin doonaya in la geeyo hoteel ka mid a hoteellada ugu caansan magaalada wuxuuna siiyey $1,000 ninkii darawalka ahaa wuxuu aaday suuqa wuxuuna soo iibiyey qudaar hilib iyo macmacaan waxaasoo idilna wuxuu saartay gaarigiisa si uu ugu qaado ninkii faqiirka ahaa iyo reerkiisii ku sugnaa buurta maxaa yeelay wuxuu ogaaday inuu allah ugu arsaaqay waxaanoo idil sabab uga timid ninkii uu caawiyey si niyada ilaahay dartiisana ah alla weyne wuxuu yidhi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ninkii tagsiilaha ahaa mid ka mid asxaabtiisa ayuu kula kulmay meel uu ka iibinayay hilib ninkii waxa uu ku qasbay tagsiilihii inuu u raaco xaafadiisa si uu uga qayb galo munaasabad lagu casuumayo dad wanaagsan ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu raacay saaxiibkiisa kadib markii ay tageen gurigii saaxiibkiisa wuxuu arkay israaf iyo cuntooyin aad u fara badan markii ay casheeyeen kadib waxaa miiska ku haray qayb dhan oo cunto ah qofna aysan taaban yacnii aysan waxba ka cunin ninkii wuxuu yidhi xaggeen geeyaa cuntadan ninkii darawalka ahaa wuxuu yidhi aniga ayaa qaadanaya markii uu soo macsalaameeyey tagsiilihii saaxiibkiisa kadib wuxuu aaday reerkii ninkii faqiirka ahaa wuxuuna siiyey wixii uu soo iibiyey oo idil iyo wixii uu ka soo qaaday gurigii saaxiibkiisa ee lagu martiqaaday isaga ninkii faqiirka ahaa wuxuu ku dhowaaday inuu la ilmeeyo farxad darteeda intii uusan ka soo tegin ninkii tagsiilaha ahaa gurigii ninkii faqiirka ahaa wuxuu maqlay isagoo taagan markaa albaabka gadaashiisa codkii carruurta iyagoo aad u qaylinaya farxad awgeeda sida inay milkiyeen wax aad u weyn oo kale ninkii tagsiilaha ahaa waxaa ka soo daadatay indhihiisa ilin isagoo aad ula xanuunsaday reerkaasi waxa ay ku sugan yihiin oo dhibaato ah wuxuuna ugu duceeyey inuu allah u naxariisto uuna wanaajiyo wuxuu kaloo ku duceeyey inuusan allahina oofsan innaga oo masaakiinta ka gaabinayna arrinkooda aanana ka warhaynin xaaladooda alla weyne wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون